Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa oo ay taariikhdu tahay 7 Abriil 2020 habeen Salaaso ah. Halkan waxaan kusoo gudbin doonaa gabay uu inoo tirin doono Mustafa Xasan Daahir, gabaygan oo ka hadli doona hooyada. Mustafa waran gabay dhaqsa laabtiriyaaye udubkii qalloocda guryuu ka raadiyaaye duco waalid baa lagu kaba laguna tiraaye kol haddaan sidii baarqabgeel beerka ka hinraago bilaashuma butaace waxbaan baabka ku hayaaye cawana balan baa qudiro beeshan kala guurtay hooyoy abaalkaaga waan ku ogsoonahaye ixsaankiyo xaqaad mudan tahaa eebbaheen sugaaye ammaantaada kuma koobi karo eraya sugaane ruuxii axsaan ku faliyo duni midku iibsha adnigu abaalka ma gudooda inabidkaan hooyaday macaanay ilaa xumahanka doorshay cadow kuma anqariyo ilaa samaha ku doonye ubad ku halgama iyo low diraca ku waayin baal ilaahay ka mari qofkii daayac kula doonaa dakhar ruuxa ku geystee nacab daryeelkaaga baal ilaahay ka mari leen doqoni waalid dhalinyaro haddaan kugu ogaa haatan dhaadhidaye dheeldheelin mooye ka tagtay socodkii dheeraaye inkastoo dhallaaniyo gabow malagu dhowrayo weligaa dushayda sunnow diifna kuma gaadho dawadii naftayda tahaabin hadugoobin inta geesi awgan dunida looga dabargooyay halkan kuma akayn kara dadkuna waa ogsoon yahaye ilaahay samaan kugu daryeelda inabidka waxba gabayguyuu ila gudbina waan gunaanadiye muuqaaga goortaan arkuu iga hadhadaale hadalkaagan goortaan maqlaan farax dareemaaye dawadii naftayda tahee abid hadugoobin ilaahay samaan kugu daryeelda